ku dhawaada 30 dukaan oo ganacsato Soomaaliyeed ay leedahay ayaa albaabada loo laabay dukaamadaas oo ku yeelay deegaanada hoos yimaada magaalada Cape Town sida warkan uu ku soo diray waryaheena Sablaale. ku dhawaad 30 dukaan oo ganacsato Soomaaliyeed leeyihiin ayaa lagu xirxiray deegaanada hoos yimaada magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. dukaamadan oo ku yaala xaafadda Harare ee degmada Khaliija gobolka Western Cape ayaa maalinimadii shalay ee albaabada la isugu laabay ku dhawaad 30 dukaan kadib markii horjoogayaasha ganacsatada South Africaanka ay ku kaceen ganacsiga Soomaalida. deegaanka Khaliija oo ganacsiga ugu badan Soomaali leedahay ayaa had iyo jeer khalalaasay rabshado aan kala joogsi lahayn lagula kaca muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku ganacsata deegaanada hoos yimaada degmada Khaliija. dukaanadan oo ay xireen ganacsato South African ayaan la ogeyn waxyaabaha ka dambeyn doona iyadoo Soomaalida degan xaafadaasi wadnaha farta ku wada hayaan lagana cabsi qabo dadka xaafada ku dhaqan inay boob u geystaan ganacsiga Soomaalida. maalmo ka hor ayaa waxaa qabsoomay shir ay ku wada hadlayeen Soomaalida ku ganacsata degmada Khaliija iyo community-ga xaafadaasi iyadoo aanan qodobo rasmi ah laga soo saarin balse dib loogu ballamay maalimada Isniinta ay soo socota. yaasiin oo ka mid ah horjoogayaasha jaaliyadda Soomaalida oo waqtigaasi kula kulanay xerada ciidamada ammaanka ee South Africa oo Soomaali badan hantidooda kula soo carareen ayaa inooga warbixiyay xaaladda ay hadda ku sugan yihiin Soomaalida xaafadda Harare. arintani waa arin la yaab leh. shalay guddigeena rag kamid ah waxay ka qayb galeen shirka dhacay Khaliija oo looga hadlayay arrimahani iyo dhibaatada soo cusboonaatay ee hadda taagan. shalay wax go'aan ah aysan ka bixin meesha oo ah in dukaaman lagu xiro ma lagu wada heshiin labada dhinacba. waxa lagu wada heshiin la isku laabto arbacada soo socoto next week. kadib ayaa waxa dhacday aniga guriga xaafadeeda jooga ayaa waxay sooceen dhalinyaro ay sheegeen in dukaamankii qaarna laga xiray alaabtiina rarta la dhahay. haddii aan imidna waxaan ugu koray mid niman madow ah ee ganacsatada xataa ayaga xataa ganacsiga ku cusub aan ahayn dadkii xataa go'aanka ama aan marka hore la gaarnay aan ahayn xataa warbixin aan ka haynin dhibaatooyinka iyo sidii wax u jiraan ay taan warka bixin ka haynin ayaa iska imaadan gadood ah ee dukaamankii hal xidhay. markaan sida ogaaday waan ka soo tagay waxaan imaaday saldhigan hadda ku guda jirno oo ah saldhiga laga xukumo qaybtan hadda dhibka ka socoto. waxaan la kulmay kabtan la yiraahdo Captain Space. waxaan u sheegay in dhibaatadan ay socoto ay naga karto mid horseedo xenophobia iyo in alaabtii la bilaqaysto. yaasiin ma noo xaqiijin kartaa inta dukaan haatan xiran? dukaanka xiran waxay gaarayaan ilaa 25 dukaan ay gaarayaan. 40 ay ahaayeen 15 kalena dib ayaa laga furay oo hadda way furan yihiin. 25 furan xiranna waxaan rajaynaynaa inay dib u furaan dadkii ayaan kula talinoona. dadkan hadda dibka geystan waxaan rabnaa inaan kiis ka furno si loo soo qabto ayagana loo soo xiray sharciga la horkeeno lana tusiyo waxa ay tahay sharciga uu yahay iyo waxa uu waafaqsan yahay. cidna aysan xaq u lahayn inay dukaan islaameed tagto iska xirto aysan xaq u lahayn. ayaga waa dad shacab annagana jacabayana sharcigana kuma kala duunin. dadkaasina kulay waxa ay leeyihiin inaan la hor istaagno ilaa heer maxkamadeed ayaan rajaynayna insha Allah. qaar ka mid ah shacabka Koonfur Afrika ee ku dhaqan xaafadda Harare ayaa u dirirayay inay sii furnaadaan ganacsiyada Soomaalida iyagoo ku amaanay Soomaalidu ay diyaar u yihiin inay ganacsadaan. nanga ofuna kama Somalia avule kubasinaida ama Somali sina banda kukileyo sithuma nomntana omncane bamakaze shopping ama Somali sifumana ngathi ama Somali manga hambe ama Somali mawahlale sanqedakala thina kawa support ama Somalia ahlale nathi ayise bathatha ama Somalia yavula ngo 6 to 10 o'clock. So siyavuya thina xa ilapha sena. So the South African community now is in this area. They support Somalia shop. Yes. Not stop. So we support Somalia shop. Somalia. Sithama Somalia makahlale. Sithuma abantu abethu abancinci evenkileni. Zikude ivenkile nezikufitshane zikhona kodwa siyafuna amaSomalia. falkan ayaa ku soo beegmaya waqti heshiis diblomaasiyadeed ay wada gaareen labadan dawladood ee Soomaaliya iyo South Africa lana filanayo in dhawaan la soo magacaabo safiir Soomaaliyeed ee u dooda xuquuqda Soomaalida ku dhaqan South Africa. Cabdi Fataax Ali Samatar Sablaale, Somali Channel, South Africa. munaasabad ballaaran oo lagu xusayo